Assalaamu calaykum. Aqoon daridu ama jahliga ayaa ah cadowga ugu weyn ee uu qof yeelan karo inta uu nool yahay. Jahliga wuxuu qofka u diidaa markasta inuu ka fakaro waxa dantiisa ah. Sidoo kale, aqoon la'aantu waxay dadka dhexal siisaa in ay garan kari waayaan sababaha fudud ee loo noolaan karo. Markasta oo uu jahliga bato, waxaa aad u adkaata nolosha. Sidoo kale, waxyaabaha laga dhaxlo aqoon la'aanta waxaa ugu daran in dhammaan dadka ay ku mashquulaan wax aan marnaba dan ugu jirin, sida in lagu xiiqo wax aan la fahamsanayn. Haddii aad u kuura gashid dhammaan dalalka gaaray horumar la taaban karo, waxaa kuu soo baxaya in ay waqti iyo hanti badan geliyeen sidii ay wax ku baran lahaayeen. Tusaale ahaan, dalka Mareykanka waxay dadkiisa aad u qadariyaan aqoonta, waana taas sababta ka dhigtay dalka ugu horumarsan dalalka adduunka ama caalamka, ama ugu dhaqaalaha badan, laguna tilmaamo inuu yahay dalka ugu awoodda badan dunida maanta, marka laga reebo Ruushka oo asna ah awoodda labaad sida la sheego. Xitaa xaaladda dalka Ruushka ama dadka Ruushka ah waa dad aqoonta dunida hogaamiya. Taasi ayaa ka dhigtay in ay soo saaraan tiknoolajiyadda ugu sareysa caalamka, sida hubka ugu halista badan ee caalamka loona yaqaano nuclear-ka. Haddii aad eegto dalalka dhaqaale ahaan hooseeya sida dalka Bakistan iyo Hindiya, waa dad awood leh oo haysta wax soo saar fara badan iyo warshado, iyaga oo qayb ka ah dalalka haysta hubka wax gumaada ee nuclear-ka. Dhaqaale ahaanna waa dalal aad u soo koraya, suurtagalna tahay in ay ku biiraan dalalka ugu dhaqaalaha badan ee caalamka sanadaha soo socda. Marka laga hadlayo aqoon, waa halka keliya ee laga maamulo dad kala duwan oo kala jaad ah, sababtoo ah aqoonta ayada ayaa dadka hogaamisa kana dhigta dad u hoggaansan sharciga. Allah subxaanahu wa tacaala ayaa quraankiisa wuxuu ku yiri: qul hal istawi alladhiina yaclamuun walladhiina laa yaclamuun. Waxaan kaloo dhihi karnaa horumarka ugu muhiimsan ee uu qofka dhaxli karo waxaa weeye waxbarashada iyo aqoonta ayaa ah xorriyad xagga maskaxda ah iyo isku filnaansho xagga nolosha ah. Qof kasta oo aqoon leh wuxuu samayn karaa fakar u madax bannaan yahay asaga, halka qofka aqoontiisa liidata ama aan wax baranin uu ku tiirsan yahay mar waliba fakarka dadka kale iyo aragtiyaha kale. Sidoo kale, qofka aqoonta leh wuxuu si sahlan ku corin karaa ama keeni karaa aragti fikrad ah taas oo horumarin karta noloshiisa iyo ummadda uu la nool yahay. Aqoonta dhabta ah waxay dadka siisaa kalsooni buuxda. Kalsoonidana waxay qofka u fududeysaa inuu si hagaagsan u guto waajibaadka ka saaran nolosha iyo bulshada. Sidoo kale, qofka waxa uu wax u baran karaa ujeedooyin kala duwan, taasi oo ku saleysan hadba fakarka qofkaasi ka dhex guuxaya. Balse waxa ugu wanaagsan ee wax loo barto ayaa ah inuu qofka noqdo qof adduunkiisa iyo aakhiradiisa ku badbaadiya aqoonta uu bartay, oo ugu maarma inuu wax ka sugo qof kale.